haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back. haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto, share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato, like gumaaha lacaga noo saar. Please subscribe, like and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام الصومالي محمد ملك استودع دونك كجوكتان وولاشين وبحور سمائي مركلة تلادي أسبوعا وحن قصة قادرية ما دام أنا كوجد تشرنا حل آد وأدق وأدونك ودن حنون كان COVID-19 أما كورونا فيروس وقلقلي وأدمودين إمتحان الله صدر إنه يهاي محيط هاي سبب الصومالي هدان هاي إن أنه وقمت أهين عالم كأدونك cabsida uu xanuunkan galiyay maxaad moodaa in uusan anagu nataabanaynin oo qaarkayo ay leeyihiin sidii caadiga ahayd geeri baa dhacday adreeskana siiya aan soo fiirina qofke war idinku xagee ka timaadeen war miyidan ka mid ahayn dadka adduunka jooga oo cabsidu wada meel ku xareysay oo coronavirus-ku uu dadkii kulli kala qoqobay oo qofkiisii xanuunsan oo isbitaalka yaala uusan booqan karin. waxaad aragtaa qofkiisii xanuunsanaa inuusan booqan karin oo telefoonka laga tusayo qofkii sakaraad oo isbitaalka yaala. wallahi alcadiim mararka qaarkood waxaad isleedahay dadka iyagu hurdadan alfa leyl waleylka ah goormabay ka soo kacayaan. war qofkiisii dhimanayo isbitaalka oo uusan arki karin ayaanu haynaa. war dadkii qofkii ilmo yar hooyadood looga xareynayo meel lagu xiriyo markuu xanuunka ku dhaco baanu haynaa. war nimcada uga darta Soomaali, war anagu nimcaanu ku jirnaa. war haduusan xanuunka kugu dhicin walaale xanuunka haduusan kugu dhicin nimcad ku jirtaa. nimcadu Ilaahay ku siiyay ilaasho ku xamdinaq ummadda aad u tagayso oo hadaadan xataa adigu ogeyn inaad tahay qof xanuunka sidi kara oo dadka u gudbin kara oo adigu aadan laga arkaynin wax sansaan ama astaan lagu garto ma ogid xataa inaad adigu sidid xanuunka dad u gudbin kartid. war fadlan guryihiina joog walaalayaal, guryihiina jooga walaalayaal, ha ka mid noqonina faafidda xanuunkan COVID-19. walaalayaal, sababta lidin yiri guryihiina jooga waa in ilmihiina aad badbaadisaan, nafsadiina aad badbaadisaan. waxaan maqlayay hooyooyin oranaya guri baan ku jirnaayo xabsigan waan ku daalnayo caruurtii anaga xabsi baa iska fadhina. war muwaadan ogeyn guriga aad joogtid oo aad frinjeer buuxa haysatid oo ubadkaaga cunno u karsanaysid oo ayagu ku caafimaad qaba iyo adigu caafimaad qaba aad ag joogtid. muwaadan ogeyn nimcayna ay tahay taa. muwaadan ogeyn inay tahay inaad gacmaha kor u taagtid oo tiraahid alxamdulillaahi rabbil caalamiin. muwaadan ogeyn 20,000 inaan sii soconno Mareykanka gudihiisa geerida xanuunkaas dadka uu galaaftay. muwaadan ogeyn in isbitaalada sariirahoodii ay buuxaan. muwaadan ogeyn in Ilaahay nimcada ku siiyay inaad ku xamdido ay tahay. muwaadan ogeyn in dadkii caafimaadka u shaqeynayay ee nursiga qaar ka mid ah ay markay shaqada ka soo baxaan intay 12 saacadood ku dhex jireen dad xanuunka COVID qaba oo maanta dhan dhar qufulan ku xirnaayeen guryahooda markay yimaadaan qaarkood inay garaashkooda seexdaan oo yan caruurtoodii u soo gali karin ay ka baqayaan inuu jirkooda soo raaco xanuunka qayb ka mid ah. muwaadan ogeyn in dad saas maanta guryahooda intay ku soo hoydaan aan qolkoodii seexan karin ay ka mid yihiin dadka xanuunkan dhibaatada uu ku hayo xataa qofkuusan ku dhicin dadka isbitaalada u shaqeeya. muwaadan ogeyn in badbaadada ubadkaaga, ehelkaaga, reerkaaga, qoyskaaga, communitygaaga ay ku jirto inaad guryihiina joogtaan, inaad kala fogaataan, inaydan isku iman. arrintan waa inaad u fahantaan walaalahayow inay tahay arrin aanan sahlanayn. kulligeenna howl baa noo taala. waa ina qof walbo naga mid ah uu qayb ka qaataa arrintaas.